ninka kursiga ku dhagan waxaan leeyahay kuwaana qaado qeyrka iyo dhacdooyinkaasi agagaarkaaga ka dhacaya in badan aad ogsoon tahay fariinta saddexaadii waxay tahay sabab ha u noqonin kursi aad isku dhajinayso sabab ha u noqonin hal ruux oo muslima dhiiggiisa inuu daato waxaana ku xaqiijinayaa haddaad sabab u noqoto hal ruux oo muslima inay la xagto iska dhaaf in la dile in la xagto dhibaata sababtaada ku gaadho haddii ay dhacdo ilaahay hortiisa maalinkaad soo istaagto adoo keliga oo qaawan adaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona ku talagal tanaasul kursiga lamadan dhalanin kulamana dhalanin ummadda masaalixdeeda iyo danaheedana wax badan baa looga tagaa danahaaga khaaskaa baa looga tanaasulaa tanaasulku waa khayr iyo maslaxo nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh kama fi saxiix albukhaari wagayri maalin isagoo khudbaynaya oo ummadda u khudbaynaya wiilkiisii xasan ayaa kursiga ayaa la soo fuulay mimbarka nabigu waa jalleecay sala allahu calayhi waaalihi wasalam markaasuu wuxuu yidhi nabigu sal alla alay wasalam wiilkaygan waa sayid buu nabigu yidhi sal alla alay wasalam ilaahayna wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo muslimiinoo waaweyn oo dagaalamaya ayuu ilaahay sabab uga dhigi doonaa in maslaxa dhexdooda dhacdo xasan ibni cali bni abi aalib sanadkii afartanaad ee taariikhda hijriga ayuu uga tanaasulay wixii laysku hayay mucaawiyat bn abi sufyaan radia allahu tacaala canhuma sanadkaana waa sanadka lagu magacaabay sanadkii midnimada muslimiinta caamuljamaaca xadiidkiiyo bishaaradii nebigaa xaqiiqowday wiilkaygu waa sayid ilaahayna ummadda muslimkaabuu ku islaaxin doonaa sayidnimada qaado oo sharafta qaado oo karaamada qaado oo nin kursiga xoog lagaga qaatay sharaf male nin la eriyey sharaf male nin ummaddiisa u tanaasulay baa sharaf iyo qiimo ku nool adduun iyo aakharaba tanaasuloo maslaxada u tanaasul